السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muuqaalkeena maanta waxaan kugula wadaagayaa 4 qalad oo waaweyn oo runtii ardayda ay ku dhacaan markii ay gali rabaan imtixaanada finalka ah. ku soo dhow daawashada muuqaalkan. ka hor inta aanan bilaabin muuqaalka, fadlan like saar muuqaalka. qaladka koowaad ay ku dhacaan ardayda markii ay imtixaanka finalka gali rabaan waxa waaye waxbarashada ama wax akhrinta dadban, passive learning. maadaama imtixaan weyn uu kugu soo socdo, waxaa muhiim ah inaad wax u akhrisid si wax ku ool ah oo wixii aad akhrisidna faa'iido ay kugu yeeshaan imtixaankaaga iyo helidda buundooyin aad u sareeyo. balse wax akhrinta dadban kuma gaarsiin doonto. wax akhrinta dadban waxaa loo yaqaanaa ardayga markuu akhrinayo buuga textbooka ah iyo notiska uu haysto marka uu dul marayo, asagoo waqti badan gelinayo in uu macluumaad fara badan akhriyo, faham badanna uusan ka helaynin. taas inta aad samayn lahayd xilligan markii la joogo isbuuca ugu dambeeya ee gali rabtid imtixaanka finalka ah, waxaa lagaaga baahan yahay inaad wax ku akhrisid wax akhrinta firfircoon waxa loo yaqaan oo ah active learning. wax akhrinta firfircoon marka waxaa ka mid ah in aad xallisid su'aalo badan inta kari kartid inaad ka jawaabtid, inaadan akhrinin su'aalo iyo jawaabo diyaarsan oo caadi ah, maxaa yeelay waxay ka noqonaysaa passive learning. haddii waqtigu uu aad ciriiri kugu yahay, wax dhib ah ma lahan inaad su'aalo iyo jawaabo akhrisid halka buuga textbooka iyo notiska waaweyn aad akhrin lahayd, way ka wanaagsan tahay. balse active learning oo sax ah waxaa kuu noqon karo in su'aalo aad heshid kadibna adiga aad ka jawaabtid, amaba problemaad aad xallisid haddii maadooyinka oo sida mathematicska, physicska iyo chemistryga oo kale haddii aad akhrinaysid, maxaa yeelay maadooyinkaas badanaa waxaa ku jiro problems oo la xallinayo. problemskaasna maskaxdaada ayay aad ugu dhagayaan. in badan haddii aad xallisid problemaad, in badan ayaa maadooyinkaas buundooyin aad u sareeya ka heli doontaa insha allah. weligaa wax akhrisaa u fariisanin adigoonan lahayn goal cad ama hadafkaas oo ah muddo dhowr saacadood ah kadib 4 saac 2 saac 3 saac kadib markii aad fariisatid oo aad wax akhriska ku jirtid, maxaa gaari doontaa, jabtaradee ka bixi doontaa. marka si hadafkaagu u cadaado, u kala qaad waxa aad akhrinaysid qaybo. tusaale haddii aad akhrinaysay physicska, u kala qaad ilaa 3 jabtar ama 4 jabtar. haddii hal jabtar ama 2 jabtar oo waaweyn ay ku yaalin, jabtarkii u sii kala qaad cutubyo hoosaad. passive learningka waxaa kaloo ka mid noqonaya ama waxbarashada dadban in aad iska dhageysatid macluumaad ama recordingyo laga duubay macallimiinta. taas aad ay ku dibirigaysaa, waqtiyada ugu dambeeya wax badan ma ka caawinayso. xilliga wax akhriska aad u fariisanaysid, isku day in wax akhriskaaga aad active ka dhigtid. haddii aad haysatid macallimiinta codad laga duubay ama dhageysi muhiim ku ah imtixaankaagana muhiim u ah, dhageyso waqtiyada bareega aad ku jirtid. earphone-ka gasho guriga markaa ka shaqaynaysid ama howlo kale markaa qabsanaysid, markaa seexan rabtid, dhageyso. qaladka labaad ay ku dhacaan ardayda markay isbuuca ugu dambeeya ee final exam-ka gali rabaan waxa waaye kala daadsanaan iyo nidaam la'aan, disorganization wax la yiraahdo. nidaam la'aantan waxa waaye ardayga wuxuu rabaa inuu wax akhriyo, niyadiisana way dhiiran tahay, balse isuguma aadan wuxuu akhrin lahaa, ma u nidaamsano. ugu horreyn ma u nidaamsano miiskii iyo kursiga uu wax ku akhrin lahaa, ma u nidaamsano nalkii fiicnaa ee qolka ugu dhagnaa si uu buugga ama wax uu akhrinayo oo aad u arko. kala daadsanaanta marka dhinac walba waxay ka mid tahay waxyaabaha aad kuu dibdhigayo kuna horseedi karto imtixaankaaga inaad ku fashilmatid. kala daadsanaanta waxaa kaloo qayb ka ah ardayga marka uu imtixaanka isbuuca ugu dambeeya inuu stress qaado, kadibna uu iloobo xitaa nafsadiisa. waxyaabihii aasaasiga u ahaa nolosha inuu qubeysto, inuu timaha iska jaro, inuu jirkiisa ka fikiro, cunto caafimaad leh inuu cuno, waxaasoo dhan way ka qaldamayaan. waxyaabahaasoo dhan markii la isku geeyana waxaa dhacayso ardayga in imtixaanka uu si wanaagsan uga soo bixi waayo, waana mid ka mid ah qaladaadka ugu waaweyn ee ardayda galaan. bointigan wuxuu isoo xasuusinayaa xilligii markii aan galayay imtixaanka dugsiga sare, qodobkan qof igala taliya ma helin, markaas ayaa waxaa igu dhacday timaha isku iloobay. 2 bilood ay ka horreysay imtixaanka finalka ee dugsiga sare uga baxay, timaha aad iyo aad ay ugu bateen. niyadeedana markaas waxaa ku jirtay anigoonan imtixaanka ka gudbin in aanan timaha iska jarin, waana mid ka mid ah qaladaadka ay ku dhacaan ardayda. haddaba waxaa muhiim ah xilliga imtixaanka aad diyaarinaysid, xitaa maalmaha ka horreeya imtixaanka, maalmaha imtixaanka aad ku jirtid, isbuuc 2 isbuuc bil wixii ka horreeyo dhan, marnaba inaadan is-iloomin adiga nafsadaada iyo daryeelkeeda waxay ka muhiimsan tahay ay ka horeysaa wax walbo. saa daraaddeed ku dadaal inaad cabtid biyo badan, inaad daryeeshid jirkaaga, qubaysatid, nadaafadaada ku dadaashid, caafimaadkaaga ku dadaashid, cuntadaada ku dadaashid. markaa wax akhrinaysidna jadwalkaaga ay qayb ka ahaato breaks
sax ma ahan inaa waqti dheer iska fadhisid adigoonan break qaadanin sida ugu wanaagsan ee organization ka qayb qaadan karto waxa waaye wax akhriskaaga inaa kusoo dartid schedule-ka ah Pomodoro technique. Pomodoro hadda koor video kale uga hadalnay insha Allah muuqaal kalena oo idinkaga sameyn doonaa waxa waaye idoo kooban jadwalka wax akhrintaada waxa ka dhigataa saacadii waxay ka kooban tahay 25 daqiiqo iyo 10 daqiiqo haddaba waxaa samaysaa 25 daqiiqo wax akhri 5 daqiiqo naso haddana 25 daqiiqo kale wax akhri 5 daqiiqo naso sidaas waxa wax ku akhrisay hal saac laba bareegna waa heshay bareegyadaas marka waxa uga faa'iideysan kartaa jirkaaga maadaama 25 daqiiqo fadhiyay inaa wax yar socotid biyo cabtid wax yar energy aa qaadatid 2 xabo ama 3 xabo timir ah koob shaah ah iyo wax la mid ah kadibna aad ku soo laabatid fadhiga iyo wax akhrintii qaladka saddexaad ee badanaa ardayda galan waxa waaye dib u dhigasho wax la yiraahdo ama procrastination qodobkan wuxuu aad iyo aad u dabaraacayaa qodobkii ka horeeyay oo ahaa inaa isnidaamisid marka ugu horeeyo inaa jadwal degsatid mar walba haduusan jadwal kuu degsanayn waxa aad kuugu badan doonto dib u dhigasho dib u dhigashadana waa mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu weyn ee dunida maanta haysato ma ahan kaliya ardayda ee waa shakhsi walba ee nool maanta nafsada ayaa waxay ku leedahay waxaan waa sameyn doontaa iska dhaaf biriya sameyn doontaa ama wax yar labado saacadood baashaal saacad saddexaad sameyn doontaa caawa bilaabi doontaa biriya bilaabi doontaa galabta bilaabi doontaa haddaba dib u dhigashada way ku dilaysaa dib u dhigashada failure ayay ka dhigaysaa dib u dhigashada weligeed horumar ma ku horseedi doonto saa daraadeeda mar haddii jadwal aad samaysatid oo noloshaadana aad ku qasabtid jadwalkaas inaad sidoo yahay u raacdid waxaa kuu suurageli doonto wax walba inaad ku dhamaysid waqti cayiman marka adigan isnidaami noloshaada nidaamso meesha wax ku akhrin lahayd kadibna jadwal fiican u degso tusaale aniga subaxii waxaa akhrinayaa saacadda laga bilaabo 3 subaxnimo ama 9 subaxnimo ilaa 5 saac waxaa akhrinayaa maadada physics-ka jabtarka qaas ahaan work power and energy 12 ilaa 2 duhurnimona waxaa akhrin doonaa jabtarka electricity 3 ilaa 5 waxaa akhrin doonaa jabtarka gravity iyo jabtarka motion marka sidaas oo kale marka jadwalkaaga uu kugu dagsan yahay waa taqaana waxa akhrin doontid maanta oo dhan saacadaha kala duwan waxa sameyn doontid waa taqaana kadibna waa ku dhaqaaqaysaa shaqadana sidaas ayay kugu fududaan doontaa marka marnaba ha sameynin dib u dhigasho qaladka afraad ee ugu weyn ee galaan ardayda isbuuca ugu dambeeya imtixaanka ee gali rabaan final examka waxa waaye hurdo yari hurdo ku filan inay heli waayaan runtii haddii jirkaaga hurdo ku filan uu waayana waxaa dhacayso maskaxdaada inuu ka lumo wax la yiraahdo focuska ama diirada maskaxdaada wax diirad ay saari karto ma jirto qofka dhalinyarada ah wuxuu u baahan yahay 8 ilaa 9 saacadood oo hurdo 24 saacba tan kuma xirno xilliga imtixaanka aad leedahay iyo xilli aadan imtixaan lahayn mar walba jirkaaga hurdo ayuu u baahan yahay si aad u qabatid shaqooyinka muhiimka u ah noloshaada haday tahay waxbarashada iyo hadii ay tahay howlaha kale ee adduunka aad ka leedahay cudurdaar ma ku noqon karto bal dhibaato weyn ay ku horseedi kartaa maalmaha imtixaanka hadii ay heli weysid hurdo kugu filan processka markuu isku xiran yahay mar haddii aad heli weysid hurdo kugu filan dib u dhigashadaada imaanayso nidaamkaaga ka tagaysa active learning ma sameyn kartid marka qofka wuxuu u baahan yahay inuu helo hurdada loo yaqaan deep sleep waa hurdo qoto dheer hurdadaas qotada dheerna waxaa lagu yaqaanaa erey waxaa loo soo gaabiyaa REM ama rapid eye movement khubarada ku takhasusay qaabka uu u shaqeeyo jirka ee loo yaqaano physiology-ga waxay ku sheegaan hurdada macaan ee leh riyooyinka marka qofka uu riyoonayo wuxuu ku jiraa deep sleep xaaladaasna waxaa la yiraahdaa rapid eye movement waxaa lagu bixiyay qofka indhihiisa way nuxnuxsanayaan laakiin murqaha jirkiisa oo dhan waa paralyzed wax tabar ah ma lahan mana isdhaqaajin karo maskaxdiisa markaas nasasho ayay ku jirtaa qofka dhalinyarada ah waxaa looga baahan yahay marka muddo 8 saacadood ah oo rapid eye movement ah oo deep sleep la yiraahdo inuu helo taasoo ka dhigi doonto subaxii markuu soo kaco maskaxdiisa inay fresh tahay ee diyaarna u tahay inay wax badan qabato cilmi baarisyo badan oo laga sameeyo hurdada oo ka qaldanto ayaa waxaa lala barbar dhigayaa qofka daroogada qaato ama alcoholta qofka waxaa la yiri 17 saacadood ilaa 19 saacadood oo si joogto ah u soo jeedo isla markaasna shaqooyin kala duwan uu ku jiro dunida maanta shaqooyin kala duwan ayaa isaga jirnaa xitaa haddii aan waxba qabanin mobile ku mashquulsannahay mar walba marka maskaxdeena way mashquulsan tahay ama mobile ku mashquulsan tahay ama aaladahan technology ku mashquulsan tahay ama daday la hadloosaa ama hawlo kale ku jirtaa mar walba way mashquulsan tahay saa daraadeeda marka cilmi baaris ayaa lagu leeyahay 17 saacadood ilaa 19 saacadood oo xiriir qofka haddii maskaxdiisa ay u mashquulsan tahay qofkaas wuxuu la mid yahay qof alcohol ku sumoobay ama daroogada alcoholka qaatay kadibna ay u saameysay si meel dhaxad ah ama moderate ah 19 saacadood ka badan oo xiriir qofka hadduu soo jeedo maskaxdiisana ay aad u sii mashquulsan tahay waxay la macno noqonaysaa marka ama uu la mid yahay qofkaas qof daroogo
qaatay isla markaasna si zaa'id ah ugu sumoobay severe intoxication. haddaba marka waanadeena waxay ku aadan tahay haddii aad tahay arday isbuuca ugu dambeeya ku jira imtixaanka isku diyaarinayo ama imtixaanka uu u bilaaban rabo maalmaha soo aadan, maadada ha ku diyaarsanaato ama yeysan ku diyaarsanaanin, waxaa aasaasi ah inay heshid 8 saacadood oo xiriir ah hurdo inaa heshid. haddii kale waxaad dareemi doontaa xitaa macluumaad aad taqaanay horay ayaa maalinta imtixaanka warqadda imtixaanka markaad dul fariisatid ka kala daadan doonto oo xasuusan weyn doontaa. maskaxdaada marka si focus ay u ahaato ay maskax soo jeedo processing samayn karto waxna xasuusan karto si ay u noqoto waxaa u baahan tahay hurdo kugu filan. gabagabada muuqaalkaas soo gaarnay, haddii aad ahayd arday ku suntan 4 qaladaad ee aan soo sheegnay mid ka mid ah, waxaan rajaynayaa maanta wixii ka dambeeya inaad ka fiirsan doontid oo ahaan doontid arday si wanaagsan wax u barta, nidaamsan, aanan marnaba dib u dhigasho samaynin, isla markaasna jirkiisa u ogolaado inuu nasto. waxaa kuu rajaynayaa imtixaanada soo aadan inaad si aad iyo aad u sareyso ugu gudbi doontid, iskoor aad u wanaagsanna aad ka dhalin doontid. dhammaanteen garabkaagaan nahay. wixii talooyin dheeraad ahna waxay ugu soo weydiin kartaan qaybta commentiga ee muuqaalkan. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.